إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم. wuxuu sheegaysaa su-aashane arda badan baa waxaa laga dhaadhiciyay luqada carabeed inay tahay luqo aan luqa cilmiyeed ahayn ama adag ee waa maxay culumta seeba ma lagu baran karaa horta sideedaba su-aal qura iska jirta wax weeyaan dunidu ma af ingiriisi bay wax ku wada barataa idinkaan idin weydiiyey jabanisku muxuu wax ku bartaa af jabanis buu ku bartaa chinisku muxuu wax ku bartaa af chines hindidu maxay wax ku barataa nin waloo dunida jooga kuwaas waa wadano waaweyn norwejigu waa 4 milyan maxay wax ku bartaa af norweji jarmalku muxuu wax ku bartaa af jarmal nin waloo wadan deganiba wuxuu wax ku bartaa maxay afkiisa taa macnaheedu miyaanay noqonayn af aan cilmi lagu baran karin ma jiro saxa ma hade nin waliba hadduu khabiir iyo doctor ku soo saaray kiisi miyaanay macnaheedu ahayn af aan cilmi lagu baran karin ma jiro af kasta waa lagu baran karaa laakiin afku wuxuu ku xidhan yahay cidda le iyo se uga shaqayso kaas waa mid markaynu dib ugu soo noqono luqada carabeed waxay ka mid tahay afafka dunida yaalla dhammaanteed oo afka ugu qalisan linguisticska dadka bartaa waxaa la tilmaamaya luqada carabeed waa luqada qura ee leh jumlada iska dhan ama sentenceska iska dhan dhammaantii eray qura inta la jajabiyey in waxoo dhan laga samayn karo matalan su-aal baan siinay luqada carabeed kii wax dilay iyo kii la dilay iyo qaabkii loo dilay iyo siduu wax u dilay iyo wuxuu ku dilay iyo inta goore uu dilay waxoo dhan kelmo waaxida ayaa laga samayn karaa daraba matalan ayaad ka samayn kartaa kii garaacay kii la garaacay wuxuu ku garaacay inta goore uu garaacay xoog inuu garaacay ayar inuu waxaba darabaha sheegaysa sentenceska oo dhan ii sheeg afka ingiriisi meesha subject iyo object iyo verb ay kelmad wada noqdaan ma jiro af ingiriisi meel uu subject iyo object iyo verb ay kelmad qura wada noqdaan ma jiro macnaheedu markaa maxay tilmaamaysaa inay tani marinka tahay inay ka jilicsantahay inay ka dabacsantaho qofku hadduu barto si fiican uu rogrogi karo while tan ingiriisiyadaanu ingiriisiga tensiskiisu waa imisa inaad matalan timeka marka la eego imisa soo 6 maaha ugu yaraan fransiiskuna waa la mid luqada carabeed waa 3 keliya maadi iyo mudaaric iyo amar iyo ma yar marka yani yaraantu waxay tilmaamaysaa inay ka fududahay usuusha dib ugu noqo waxa la yidhaha rootska afka ingiriisiga oo dhan bay dhahaan 800 kaba badna rootku waa yani masaadirta 800 oo masdar kaba badna waa laga yaabaa luqada carabiga baxra qiyare sharxa maxaa la yiraahdaa lam yatalaf'al ka 200 oo ficil soo arooriya yani 200 oo ficil in la soo arooriyo kitaab yaro baxa qala inta lagu soo arooriyo luqada ingiriisiga oo dhan rootkeedu 800 ka badan waayo iska war yani maxay tilmaamaysaa tani siday fariga u tahay ama qaniga u tahay shalayto dunida marba luqada carabeed ninkan ku hadalay la oran jiray waa mutakhallif Francis Bacon soo mataqaaniin filosofkii ingiriisi alla tilmaamo yani cilmigu markii ay Yurub dhaxlaysay wuxuu oran jiray nimaan af carabiga ku hadalay cilmi baran maayo oran jiray dawan ingiriisi af carabi nimaan ku hadalay waa Francis Bacon ka garanaysa yani wuxuu leeyahay siday maanta uu yiraahdo dad af ingiriisiga baraga si wanaagsan cilmiga soo ururin kari maysid ayuu wuxuu lahaa af carabiga hadaan aqoonin ma soo ururin karaysid bacil yani wuxuu tilmaamay cilmigu dhamaantii inuu ku qoraa luqada carabeed xalana luqada carabeed waa luqa qaniya intaasoo dhan marka aad ka timaado waxaa timi ilaahay baynu addoomaunay rabnaana inaynu caabudno waa luqadii ilaahay waxyigiisa u doortay inay kusoo degto qofka raba cilmiga dhabta ah markaa inuu garto cilmiga dhabtiisoo kii ilaahay ka yimi maaha qofka raba cilmiga dhabta inuu bartaa wuxuu ku qasbay inuu luqa carabeed barto waayo waa kalaamullahi wuxuu ku qoraa luqada carabeed markaa waxaan odhan karnaa iyada ka fudud ka jilicsan ka ballaadhan ka fiican laakiin midna waa la tadwiiriyey oo qaabka loo daraaseeyaa la fudaydiyey oo khubara isugu tagtay oo waa af ingiriisiga si lagugu fudaydiyo
intanoo cajiladoodoo yaryar intanoo buugoo yaryar conversation yar dabadda istaago ku wada hadla macallin loo soo traingareeyey luqada af ingiriisiga inuu dadka baro foreign language baa loo soo traingareeyey inuu wax ku dhigi karo bugaag yararoo kala wada nooca suurado waxaan yani wax qaabkii lagu bari lahaabaa waxa la isku dayey maxay in la fudaydiyo laakiin maadaama dadkii lahaaye inagii muslimkaa luqada carbeed aynu juhdi gelin weynay waxay weli u joogtaa sidii uga tegay siibawey iyo raggii waaweynaaye luqada tan usuusheeda dejiyey weli masaajidda waxaa loogu daraasayaa qaabkii qadiimka ahaa waa qaab fiican laakiin waa qaab ilmaha yaree bilowga ahi ku adkaan kara hadduu is idhaahdo qaabkan waxu daraasay waxaan leenahay luqadu ma adka laakiin innagaa baylihinay innaga fudaydin weyno si fiican dadka ugu dhigi weyno meel kasta ku dhigi weynay innagaa luqa cilmiyeed ka dhigi weynay idan waxaan odhan lahaa qofka muslimka ahi kama maarmo inuu barto luqa carbeed ta kale hadduu ku dhinac bartana ma mushkila dhiba ma jirto laakiin qof muslim oo raba inuu ilaah iyo rasuulkiisa si fiican wax uga fahmaa waxaa ku qasban inuu si wanaagsan u barto luqa carbeed iyadaana 100% ka fudud tan kale ee la macmacaaneeyey laakiin tan xawaashkaan ku badnay